Bismillahirrahmanirrahim. Saaxiibadaan jecelnahay ku soo dhawaada barnaamijka TV-ga Runsheeg oo xiliyadan oo kale si toos ah ugula socotaan. TV-ga Runsheeg xafiiskiisa magaalada Muqdisho qodobada aan idin haynana waxa ugu waaweyn shir xasaasi ah oo shirgudoomiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor. Soomaaliya oo ka mid noqotay 47 dal oo laga saaray liiska casaanka ee Britain. Dhaxal sugaa Sacuudiga oo iibsaday koox ka tirsan horyaalka Premier League. Israaiil oo masaajida Al-Aqsa ka soo saartay go'aan cusub iyo cara arintaasi ka dhalatay. qodobka ugu horeeya barnaamijka TV-ga Runsheeg waxa uu noqonayaa Qoor-Qoor oo shirgudoomiyay kulan xasaasi ah isla markaana diiradda lagu saarayay Galmudug sidoo kalena baaq u diray ahlu sunna wal jamaa. madaxweynaha dowladda goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa shirgudoomiyay shirka golaha wasiirada Galmudug oo xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug. kulanka ayaa diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee amniga Galmudug, arrimaha doorashooyinka, dood iyo falanqeyn. kadib golaha wasiirada waxay soo saareen qodobadan soo socda. golaha wuxuu ugu baaqayaa kooxaha ku hoolan falalka amni darro inay ka waantoobaan damacooduna ay ku doonaan si nabada. golaha wuxuu soo saaray in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyadoo loo gudbiyay dhinacyada ay khuseyso inay gutaan waajibaadkii loo igmaday. kulankani uu shirgudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa imaanaya xilli xiisad ay ka taagan tahay Galmudug taasoo ka dhalatay kadib markii ahlu sunna wal jamaa ay la wareegeen magaalada Qoor-Qoor ee gobolkaasi Galgaduud. madaxweynaha Galmudug ayaa soo jeediyay in arrimo military oo xoog leh loo adeegsado ahlu sunna si looga saaro magaalada Qoor-Qoor. hase yeeshee arintaasi waxaa ka biyadiiday xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug. waxaana sidoo kale xalay si rasmi ah isku casilay wasiirka amniga gudaha ee Galmudug kadib markii uu soo jeediyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor in dagaal lagu qaado ahlu sunna wal jamaa. hase yeeshee wasiirka amniga ayaa ka biyadiiday isagoona sheegay xaaladda Qoor-Qoor in lagu wajaho si nabadgelyo oo aan dagaal lagu qaadin ahlu sunna wal jamaa. qaybihii ugu horeeyay barnaamijka TV-ga Runsheeg ayaan ku guda jirnay. Soomaaliya ayaa ka mid noqotay 47 dal oo laga saaray liiska caanka ee Britain. Britain ayaa dib u habeen ku sameysay dalalka ku jiray liiska cas ee dadka soo booqanaya dalkaasi cudurka COVID-19 awgeed. dadka ka soo jeeda dalalkan ee haysta baasaboorka Britain oo kaliya ayaa loo ogolaa inay tagaan UK kuwaasoo galaya karantiilka, iyadoo dadka caadiga ee dalalkan u dhashay ay mamnuuc ka ahayd inay Britain galaan. dadka ka yimaada dalalkan marka ay xuduudaha boqortooyada Ingiriiska soo galaan waxaa la geynayay hoteelo ay dowladdu qorshaysay halkaasoo ay ku galayaan karantiil. haddaba Britain ayaa liiska cas ka saartay 47 dal oo ka mid ahaa kuwii ku jiray laga bilaabo 11 bishan oo Isniinta ku beegan, waxaana shuruudaha looga dhigay inay qabaan tallaalka COVID-19. waxayna kala yihiin Afghanistan, Angola, Argentina, Bolivia, Botswana, Brazil, Burundi, Cape Verde, Chile, Congo, Costa Rica, Cuba, Eritrea, Sweden, Ethiopia, France, Georgia, Guyana, Indonesia, Lesotho, Malawi, Mayotte, Mexico, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Philippines, Zambia, Tunisia, Uganda iyo wadamo kale. liiska casaanka ayaa waxaa hadda ku haray 7 dal oo kala Colombia, Dominica, Ecuador, Haiti, Panama, Peru, Venezuela,
Israaiil oo masaajidka Al-Aqsa ka soo saartay go'aan cusub iyo caro ka dhalatay arrintaasi. Maxkamadda ku taala Israaiil ayaa xukuntay in Yahuudda ay si aamusnaan u gudan karaan salaadooda dhismaha masaajid barakeysan Al-Aqsa oo si weyn u xushmeeyaan muslimiinta. Go'aankan ayaa horseedi kara caro ballaaran iyadoona masaajidka Al-Aqsa uu dhexaad u yahay khilaafka Israaiil iyo Falastiin, wuxuuna haatan ka mid noqday bariga Qudus ee Israaiil ay maamusho. Golaha arrimaha Islaamka ee wafaq ee maamula masaajidkaasi ayaa xukunka maxkamadda ku tilmaamay daandaansi oo aan sharci ahayn, halka ra'iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shaytax uga digay Israaiil in tallaabo kasta oo lagu dhaqan gelinayo go'aankaasi. Go'aanka waqaf wuxuu si cagajiid u siinayaa Yahuudda marin xadidan saacadaha qaarkood, balse joogteynta Yahuudda ee Al-Aqsa ayaa muddo dheer taagnaa iyadoo qaylo dhan guud ay soo dirayaan dunida muslimka ah. Ma jiro sharci Israaiil oo ka mamnuucaya Yahuudda inay salaada ay ku tukadaan masaajidka oo ah goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Tan iyo 1967 oo ahaa sanadkii ay Israaiil qabsatay bariga Qudus oo ay ku jirto magaalada qadiimiga ah ee dagaalkii 6 maalmood oo muslimiinta Israaiil waxay meel mariyeen mamnuucidda salaada Yahuudda si looga hortago xiisadaha ka dhalan kara. Yahuudda ayaa dhibaato badan waxay ku haysaa masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa, hase yeeshee muslimiinta meel walba ay joogaan waxa ay sheegeen in arrintaasi aysan aqbali doonin, isla markaana Yahuudda lala galayo dagaal adag si looga saaro halkaasi. Weli waxaad daawanaysaan TV-ga Runsheeg, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan share, like, comment si saaxiibo badan ay u daawadaan. Dhaxal sugaha Sacuudiga oo iibsaday koox ka tirsan horyaalka Premier League. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray horyaalka Premier League ee dalka Britain, Sacuudi Carabiya ayaa iibsatay kooxda Newcastle United oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkaasi. Heshiiskan ayaa lagu sheegay inuu ku kacayo 305 milyan oo pound, waxaana qalinka lagu dugay maanta. Milkiilaha rasmiga ee Newcastle ayaa hadda loo arkaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, maadaama uu yahay ninka ugu awoodda badan dowladda Sacuudiga, waxaana hoosta sanduuqa BIF ee heshiiskan lagu saxiixay Premier League, Newcastle United Football Club iyo shirkadda ST James Holdings Limited. Taageerayaasha Newcastle ayaa isugu soo baxay dabaaldeg ka dhacay agaarka garoonka ST James Park iyagoo ku faraxsan heshiiska lagu iibsaday kooxdan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo milkiilayaasha cusub ee Newcastle United oo ah mid ka mid ah kooxaha ugu caansan ee England, ayuu yiri madaxa BIF Yasir Al-Rumayyan. Heshiiskan oo hadda ka hor la isku dayay ayaa fashilmay sanadkii 2020 markii Premier League uu ku adkaystay in laga saaro BIF iyo dowladda Sacuudiga. Sidoo kale Sacuudiga ayaa dalkeeda u ogolaatay in laga daawado telefishinka BEIN Sports ee laga leeyahay dalkaasi Qatar. Heshiiskan ayaa ka dhigan in Newcastle United ay hadda kadib noqonayso kooxda dunida ugu taajirsan maadaama uu la wareegay dhaxal suge Maxamed bin Salmaan. qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka TV-ga Runsheeg ayaan isla soo gaarnay ee Galmudug ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay sababta ciidamada ay u gadoodeen. ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay gadooday iyagoo la wareegay kastamka canshuuraha laga qaado ee koonfurta magaalada Gaalkacyo. Kontaroolka ay ciidamada gadoodsan la wareegeen ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsanaa booliska Galmudug, hase yeeshee ay si nabadgelyo ugu tageen markii ay u yimaadeen ciidamo ka tirsan daraawiishta maamulka Galmudug. wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa warbaahinta u sheegay ciidamadu ay ka gadoodeen mushaar la'aan ay ka cabanayeen kadib markii ciidamo kale ee Galmudug ay mushaarka u soo dhacay. wuxuu meesha ka saaray in gadoodka ciidamada uu salka ku hayo iscasilaadda wasiirka amniga Galmudug
waxa uu sheegay in la xalin doono waxyaabaha ay ka cabanayaan ciidamadaasi. dhowr jeer ayay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ee ku sugan deegaanada Mudug iyo Galgaduud ay sameeyeen gadood, markii dambana arintooda la xaliyay. gudaha khiyaaray inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka TV-ga Runsheeg aad ka daawanayseen. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo aad noo daawateen. hase yeeshee waxaan idinka codsanaynaa in channelkan share, like, comment aad ku qabataan si saaxiibadeena kale ay u daawadaan. mahadsanidin.